daawadayaal wacan wanaagsan meel kastoo joogtaan haatan ku soo dhawaada arrin la yaab leh oo ka dhacday baraha bulshada sanadkii 2024 taasoo gabadha Saadarka Saamba ay ka qaylinayso arrin sharafteeda ku saabsan oo hablo ay saaxiib yihiin ay u geysteen kadib markii baraha bulshada ay soo dhigeen sawirro qaqaawan taasoo aad ugu la yaab noqotay dadka inta badan isticmaala baraha bulshada sida TikTok iyo dhammaan familkeyga. Gabadha waxay ka caawinaysaa in saaxiibadeed ay soo dhigeen sawiradeeda iyagoo qaqaawan isla markaana hore ay isku ogaanaysan waxba soo dhigeen ama ay ku heshiyeen in wax sawira ay iska soo dhigin baraha bulshada balse ugu dambeyntii laba ka mid ah saaxiibadeed ay soo dhigeen sawirro qaqaawan. Daawadayaal tani waxay ku cadeynaysaa in saaxiibkaaga kuugu dhow uu samayn kara wax walbana aad ka filan karto. Bal haddaba aan daawano waxa dhacay iyo sida ay dareenkayga uga falcelisay kadib sawirada qaqaawan ee iyadu lahayd ay ku aragtay baraha bulshada. inaad intaad qabato sheer garaysid u diraysay aabbaha iyo doranaysa inantaada dhalanimadeeda anoo qaawan aabbaha jecel waa bee aabbaha jecel gabadhiisoo qaawan oo qadar ku dhacay inuu daawado waa bee aabbaha social media kuma jiro aabbaha social media intaad ii geysanaysid adoo ilmahayga hoosta ku haya ayaad sawiradeeda dhan sii sheer garaysay TikTok yaala istil walaabasayay wali waad is afraysan waliba taad igu samaysay mar unbay kaa dhici mar unbay kaa jarmi goor ay noqotaba harbasana waa maska yoom inantay jecelay inanta wanaaga jecelay inanta miskiinada ay hataa soo dhigaya markii ay mijakuule iyo maxaa la raday marjee dhagalay erinay sawiradeeda qaqaawa soo dhigayeen hataa soo dhigaya right now